habeen ka mid ah habeenada ay Yasmiin la kulanta Mursal sida caadada ahna waxa ay kaga sii horumari jirtay deerka bannaanka guriga ku yaala iyadoo in cabaar ah fadhisa ayuu u yimid Mursal ayaa soo boodi waan ogahay caawa waan ka soo daahay ee iga raali noqo abaayo Yasmiin ayaa soo boodi raali gelinta in salaanta aad ka soo hormarisid ay kaaga habooneed misna Mursal intuu qusli ayuu yiri waxaan is iri arma lagu xanaaqsan yahay oo salaanta lagugu sayra sida ayaan raali gelinta u bixiyay Yasmiin ayaa soo booday maxaad sida aad u leedahay ma ana awooday inaan ku maxkamadeeyo Mursal ayaa soo booday maxaa jira soo qof laga soo daahay matid yaa ku diiday inaad i xisaabiso waa qasabtaa Yasmiin ayaa soo fariisatay Mursalow aniga wax badan ayuu qalbigayga i weydiiyaa haddana su'aalahaas badan jawaab uma helo Mursal haye ma ku saacidaa bal ii sheeg maxay yihiin Yasmiin ayaa soo hindiqday horta Mursalow wax jecel ah ma ii qaaday ileen shalay aniga jecel kugu casuumay oo ku calmaday ee horta ugu yaraan ma iga heshay Mursal ayaa soo fariistay haye hadalkaaga meesha ugu dambaysay ayaan kaaga qabanayaa maxaad ii tiri ugu yaraan ma iga heshay haa waan ka helay waliba dabeecadahaada degan ayaan ka helay waxaana aaminsanahay in adiga iyo aniga meelo badan aan iska leenahay micnaha dabeecadda Yasmiin haye haddii ay sidaa tahay jecel ma ii qabtaa sida aan kugu qabo Mursal ayaa soo booday ma og tahay in jecelka uu ku abuurmo ka helid iyo kalsooni labada qof dhex marto intaasi way inoo dhexaysaa maxaa kale Yasmiin ayaa indhaha furtay iyadoo jawaab kala qabta laakiin wali jawaabtii rasmiga ahayd imaadan siinin Mursal malaha gobollada aan ka kala nimid ayaa kala bedelan af Soomaaligana waan isku fahmi laanahay haye Yasmiin xiriirkan hortiisa xiriir ma soo martay oo gabar ma jeclaatay Mursal oo su'aashii ka dharagsan xiriirkan hortiis xiriir ima soo marin laakiin gabar aan jeclaaday way jirtay Yasmiin waxaan u fahmay qof ayaad jeclaatay balse xiriir idima dhaxmarin Mursal haa waa sida aad u fahamtay Yasmiin maxaad jecelkaaga ugu sheegan weyday Mursal inta aan u sheeganin ka hor ayaan ogaaday inay qof jeceshahay marka waan iska daayay Yasmiin oo su'aal kala qabta ayaa tiri sidee u daysay mar haddaanan la qabin waad u sheegan kartay Mursal jecelka dhabta ah ayaa ah in qofka aad jeceshahay aad farxaddeeda ku ilaaliso xataa haddii ay farxaddaasi tahay mid adiga qaraar ku ah waana midda aan ugu daayay nafteeda meeshay jeclaatay Yasmiin gabadhaas ma aqaana aniga Mursal maya Yasmiin ma wada shaqaysaan Mursal oo su'aalihii ka meermeeraya ayaa haddana ku jawaabay maya Yasmiin halkii ayay joogtaa aboowe Mursal meel fog Yasmiin gobolka aad ka timi ayaan u qaatay soo ma aha sidaa Mursal oo ay su'aalihii ku bateen ayaa ku jawaabay haa Yasmiin wali ma jeceshahay Mursal ayaa soo booday waxa uu yiri waa su'aal aad u qaldan abaayo aniga caawa adiga ayaan ku hor fadhiyaa waxaanu nahay dad xiriir u dhaxeeyo ma ahan inaad arrintaasi aad i weydiiso Yasmiin laakiin ma og tahay in aad wali i dhihin waan ku jeclahay Mursal oo u eg qof laga gar helay ayaa ku jawaabay haddaba kuma rabo miyaan ku dhahay maxay tahay sababta aad caawa wax badan ii qodqodaysid mise iguma kalsoonid abaayo Yasmiin maya aboowe sidaa ma ahan balse waxaan rabaa inaad noloshaada wax badan igaga sheegtid Mursal haddii ay sidaa tahay caawa mid iga ogow noloshayda adiga ayaan kuu hibeeyey wax kasta oo noloshaada iga soo gaaray waxaan aaminsanahay in aad adiga i ilowsiin kartid horaan kugu dhahay wax badan oo xagga dabeecadaha ayaan iska leenahay waana waxa aan kugu kalsoonahay oo aan kugu soo dhawaaday Yasmiin oo hadalkii la dhacday ayaa ku jawaabtay maya wallaahi marnaba kama shakin ee afdheeri la iga ahayd Mursal xaq ayaad u leedahay inaad wax badan aad ka barato cidda aad nolosha la wadaagayso laakiin mid iga hoo Mursal adiga oo kaliya ayuu ku jecel yahay Yasmiin farxad darteed ayay inta ay gacanta soo qaaday ayay dhunkatay oo ay ku tiri Yasmiin iga raali noqo aboowe macaane ma doonaynin inaan ku dhaawaco Mursal oo kalsooni iska doondoonaya ayaa ku jawaabay
igu kalsoonoo haye yasmiin madaxa ayay ruuxday iyada oo dareensiinayso inay ku kalsoon tahay habeenkaas yasmiin marnaba kama aysan qoomamaynin hadalladii ay caawan ku nudnudaysay mursal maxaa yeelay ugu dambayn kalsooni weyn ayaa gashay mar haddii uu sheegay in iyada oo keliya ay leedahay habeen farxadeed ayay u ahayd in cabbaar ah kadib ayaa la kala tagay oo qof weliba gurigii ayuu dib ugu laabtay iyadoo hurdo wanaagsan la isu rajeeyey jawiga aad ayuu u degganaa mursal habeenkaasi si toos ah uma uusan abbaarin guriga waxa uuna in cabbaar ah iska sii fadhiyey maqaaxid laamiga ku taalla isaga oo wax badan naftiisa ka weyddiisay sida uu nolosha ula wadaagi karo qof uusan ku qanacsanayn balse waxa uu isku qanciyey inuu maalin jeclaan doono saaxiib yaa la socda qaybta 21aad ee sheekada taxanaha ahayd ee la magac baxday libin jacayl